arrinta farxadda leh waxay tahay xilliga aan soomanahay in ay caafimaad toos ah u leedahay caafimaadka indhaha. Tusaale ahaan markii aan soomanahay sokorta ayaa jirkeena ayaa hoos u dhacaysa. Markay hoos u dhacdo waxay saameynaysaa in waxyaabo badan oo sokorta markay kacsan tahay jirka indhaha ay u gaarsan lahaayeen inay ka hortagto. Sida diabetic retinopathy oo ah xaalad cudur indhaha ku dhaco oo sababto sokorta jirka oo kor u kacdo. Midda labaad ay tahay in ay sokorta markay kor u kacdo ay saameynayso cudur la yiraahdo glaucoma. Sidaas awgeed markii aan soomanahay sokorta ay hoos u dhacdo pressure-ka indhaha u kici lahaa inay jaaniskeedu hoos u yaraado. Sidoo kale arrinta kale oo jirta waxay tahay markii aan soomanahay jirkeenu wuxuu soo daayaa waxyaabo unugyada duqooba oo la yiraahdo autophagy. Sidaa awgeed ayay kaga hortagaysaa cudur la yiraahdo macular degeneration oo sidoo kale indhaha ku dhaco. Markii aan soomanahay shantan waxyaalood waxay sababaan waxa la yiraahdo eyelid twitching ama baalka indhaha oo birig ku siiyo. Midda koowaad waxay tahay waxyaabaha sababa biyaha jirkaaga oo yiraahdo ama dehydration waxa la yiraahdo. Midda labaad oo ah caffeine ama kafeega ama shaaha jirkaaga inuu ku bato maadada caffeine la yiraahdo. Mid saddexaad oo ah stresska walwalka markuu kugu bato laftirkeeda waa sababaysaa in xaaladdan ay ku sii ziyaado. Midda afraad oo ah daalka qofka markuu daalo dareemo maskaxiyan ha noqoto ama jir ahaato xaaladdan way sababtaa. Midda shanaad oo ah indho qaleel haddii indho qaleel jira xaaladdan way sababtaa. Marka haddii aad kugu soo laabto arrimaha il gooni u lahaa haddii ay kaa saacidi weyso inaad controlshin dhakhtarkaaga indhaha la xiriir asiga kaa caawin doona insha Allah caafimaad. Waxyaabaha lagaga baahan yahay haddii aad tahay hooyo mise aabe markii canugaaga aad sawir ka qaadaysid waxaa aragteen in uu color indhihiisa ay soo bixinayaan flashka indhaha reflex la yiraahdo indhaha ay soo bixinayaan. Hadda cunugan fiiriya isha midig iyo isha bidix labadiisa color way kala duwan yihiin. Marka arrinta la rabo markii cunugaaga aad ku aragtid inaad dhakhtar u ordo waxay tahay marka koowaad haddii labada color oo indhaha ay soo kala bixinaysa haddii kala duwan tahay labada indho mid ka mid ah ayaa cilad qabto. Adiga badanaa ma fahmi kartid laakiin dhakhtarkaaga ay u geynaysaa. Tusaale ahaan haddii labada indho aan kuu sheego middan gaduudan ayaa isha fiican ah ishan kale ma fiican cilad ayay qabtaa. Weliba ciladda qabtay waxaa la yiraahdaa retinoblastoma nooc kansar ka mid ah oo indhaha ku dhaco. Marka xaalado khatar way noqotaa xaalad fudud. Marka haddii aad ku aragto flashka canugaaga haddii qof baa horey u aragtay araggiisa aad u hooseeyo oo uu ku yar haddii loo geliyo xataa aan araggiisa u kordhayn una baahan inuu mataqaanaa wax kutub akhriyo telefishin fiirsado waxaa jira qalab la yiraahdo low vision aids sida yarka odaygan hadda target ku xiran oo kale waxay u saacidaysaa in maaragtay uu qofka wajiga caruurtiisa aqoonsan karo wax soo qabsan karo buugiisa akhrisan karo. Marka waxaa jirta rajo ayaa jirto haddii aadan horey u arkin maadaama inta badan dalalka Afrika aan aad loogu isticmaalin laakiin way jirtaa oo waxaa jirta rajo iyo qalab kaa saacidi karo in nolol maalmeedkaaga aad ku fushid. Marka waxaan idin rajaynayaa haddii aad taqaanid qof